kulan lagu xoojinayay sidii loo adkeyn lahaa calaaqaadka cusub ee dhawaan yeesheen dawladda Soomaaliya iyo dawladda South Africa ayaa lagu qabtay hotelka caalamiga ee Noor International ee ku yaala xaafadda Mayfield oo Soomaalidu deegaan ahaan ku badan tahay oo magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. kulankani ay ka soo qayb galeen saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dalkani Koonfur Afrika, danjiraha safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika, ganacsato iyo madaxda jaaliyadda ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa shalay ka dhacay magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika. kulankani ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay madaxa xiriirka caalamiga ee bariga Afrika xukuumadda Koonfur Afrika Master Zivu isagoona sheegay in ujeedada kulankani waa sidii loo xoojin lahaa xiriirka cusub ee dhawaan yeesheen dawladda Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Afrika. danjiraha cusub ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo soo magacawday dalkani Koonfur Afrika mudane Sayid Xasan Shariif ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay ujeedka kulankani waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in kulan uu la qaato saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda waddankani South Africa. marka aan soo koobo wuxuu qayb ka ahaa dhimeystirna ka ahaa barnaamijkii ahaa calaaqaadka Soomaaliya iyo South Africa oo la kala saxiixday 13 bishii Maarch sanadkan, taasoo la doonayo in xoog looga yeelo in calaaqaadka Soomaaliya iyo South Africa uu xoog lahaado una gaaro heerkii uu sareeyay oo uu sinaado safaarad Soomaaliyeed oo halkan laga furo iyo mid South Africa ay leedahay oo xamar laga furo. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada furitaanka safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika ganacsade Yuusuf Culusow ayaa isaguna sheegay in hawsha safaaradda ay markaani tahay gabagabo meel wanaagsan ay u marayaan howlaha safaaradda. aniga ku hadlayo magaca guddiga qabanqaabada safaaradda Soomaaliya ee South Africa waxaan u gudbinay safaaradda hawsheedii dhamaatay oo aan rajeynay in usbuuca dambe ay furmi doonto. kulankani ay yeesheen saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda dalkani Koonfur Afrika iyo danjiraha safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika iyo ganacsatada madaxda jaaliyadda ee dalkani Koonfur Afrika ayaa noqonaya kii ugu horreeyay noociisa oo kala ah oo ebid ay yeeshaan iyadoo kulankani ku soo idlaaday jawi heer sare ah. Cabdillaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya waddanka South Africa.